kubadda markaan waa la baasi doonaa waryaanka degmada dharkiinle ayaa kubadda u baasi doona haddii aad xasustid Rio de Janeiro waxaad xasuusan kartaa degmada waa bari oo ah degmo ku olbaxsan dhanka iyo horumarka kubadda cagta kooxda degmada dharkiinle sanad waxaa lagu qaaday koobka tartanka degmooyinka goolkulaad iyadoo dharkiinle sanadkaasi 2019 ay ahayd koox aan laga adkaanin oo markaana waa kala ciyaarayaan Usmaan waryaanka kooxda degmada waa bari ayaa ka faa'iideystay waayo fursad uu ku halgaaday difaacyada kooxda degmada dharkiinle xidiga kabtanka kooxda kubadda cagta degmada markiisa afraad ay ciyaaraya tartankan waana ciyaartooyda ugu badan ee tartankan ciyaarta markan waa kan degmada dharkiinle gool ay soo dhigan ciyaaryaanka goolka u qabta degmada lagu magacaabo waa bari ayaa ka badbaadiyay fursad qaali ah oo wanaagsan kamid ah ciyaartooydii Puntland tartankii maamul goboleedyada waa la soo korosay markan halis FC Barayo uu ciyaara gobolka Barayo matalay markan weerar degmada dharkiinle waa la soo korosay laakiin ma aysan dhicin lambarka 10aad dharkiinle uu weerar foul garsoora waxa uu leeyahay sax oo istaag ciyaartooyga lambarka 10aad Abdinajiib Qaasim Maxamed وإرادة لما كسر يتمناد ويوسف جابر يوسف أليس جول ياريان كلام مركز يتمناد الدجمة المجهول وبري ولقد يدك بدأسي وما سنهن ما نرمى استرين دبل الدجمة المجهول وبري ciyaarihii bariga bartamaha Afrika ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Banjabur ee Burundi sidoo kale waxa uu gaaray 2020 finaalkii tarta degmada kale ayaa loo martay goolka koowaad ee ciyaarta group D waa bari iyo sidoo kale dharkiinle waxaana markaas dhaliyay ciyaartooyga madax ayaa lagu saaray daafici Jubbaland haddana uu ciyaaray degmada dharkiinle baaya ayaa kubadda soo saaray waa kan kabtan Usmaan waa uu soo dhigay marka waa bari ka gool salis oo late laakiin waxa diiday goolaha lagu magacaabo Liban Oblique وهذاك داركيلي كبدا مركان way soo saartay 40 daqiiqo ay maraysaa daawade shabaqa dharkiilay wala tawaal gaar leeyahay waa bari ayana waa kan ninka markan sadiq ayaa goolka markaas ka haysta waa soo dhigay waryaanka alis maya ma aysan dhicin iyo sidoo kale dalal ay kamid tahay Tanzania oo finaalka ay wada ciyaareen markan Yusuf oo soo saaray kubadda mar kale dharkiilay weerar ayaa la hayaa laakiin ugu dambeyntii markan goolaha Liban Oblique lambarka 17aad ciyaartooyga gudaha ee galata markaas ciyaaraya waa bari weerar ayaa markan saaran waa kan Faisal lambarka 9aad mashalaayaha markan waa kan Cabdiqani Kaarig isaga wata goosma qurxun marka lagu soo dhigo waa kan weeraryaanka uu soo dhiibay waa uu soo qaaday Alis Maya Abdul Qaadir ayaa kubadda markan qabtay ee degmada dharkiinle ayaa ku salaysan soo deg oo weerar tag garsoore Cabdi Fataax Mari ayaa ku dhawaaqay seerigay markaas inay ku dhacday oo la gaaray saacadii la kala mari lahaa labada kooxood ayaa ku kala nasanaya gool Iber oo ay ku hogaaminayeen degmada lagu magacaabo dharkiinle goolkana waxa iskale oo dhaliyay ciyaaryahan Cabdiqani Kaarig ayaana markan kubadda baasa doona isagoo la soo ballamay ciyaartooyda kooxda degmada waa bari ay ka dhaliyeen degmada aadka lagu boqo markay noqoto tartanka degmooyinka waa kan markan weerar waa kan ciyaaryahan kale marka 9aad alis markan ciyaaryahan Faisal bisota ayaa lagu dhaxawnay ciyaartooyda lambarka 9aad ee degmada lagu magacaabo dharkiinle hal daqiiqo aysan ka soo wareegin fursad kale ay yeeleen degmada dharkiinle ciyaaryahanka lambarka 9aad ee degmada lagu magacaabo waa bari ayaa kubadda laga soo fakaday lambarka 4aad Cabdiraxmaan Faisal Abdulqaadir Maxamed Faisal Abdulqaadir Maxamed ayaa ogaan go'oojiyay degmada dharkiinle waxaana uu dhaliyay haye walaalihii garbaha ayaa lagu kala gooyay waa bari wabka ayaa lagu dhiftay dabaaldeg lii ugu dambeeyay ayaana markaa lagu sameeyay degmada lagu magacaabo waa bari waxaana laga dhaliyay goolkoodii labaad waa bari ayaana laga dhaliyay goolkoodii labaad dharkiinle ayaana aasaysa oo istaadiga Muqdisho inay dadka wadatay ku daldalaysa degmada lagu magacaabo waa bari goolkii labaad joogdheeraha Faisal Abdulqaadir ayaana dhaliyay qalad ay wada geysteen lambarka 4aad iyo lambarka 5aad ee degmada waa bari si wada jir qalad ay u galeen
ayaana markaas lagu abaalmariyey oo goolkii labaad lagu dhaliyey golaaye cabdulqaadir abukar yaasiin oo sanadkan abaabulkooda aysan wanaagsaneyn taageerayaashooda waa la aamusiyey saalax jimi ayaa ku baashaalaya garoonka stadium muqdisho weerar markale waa kan cabdiqani kaarig mar kale laguma harin waa beri weerar kale ayaa saaran waa la weeraraya waa beri markale waa la soo dhigay waa ka faysalda waxa uu bannaanka oo marba dhinaca ka soo dusaya markaana kubadda wuu soo dhigay isaga iyo golaayaha uu soo ciyaaryaanka lagu magacaabo faysal cad JCI Jubbaland ayaa markaasi kubadda soo dhigay waa kan kaarig mar kale kaarig isaga hal iyo laba uu ku eegay waa kan mar kale kaarig oo uu talaabsaday kaarig waa ka kaarig waa uu soo dhigay cabdiqani kaarig ayaa ku baashaalaya oo halis oo bannaanka waxay leeyihiin waa soo kabsan doonaa waa kan saadaq mar kale saadaq isagaa kubadda tala marka 17 7 oo kasoo talaabsaday oo wada fanaan dharkii waayahay meelo badan oo caan ah oo degmada waa beri ayaan ku xasuusin doonaa sidoo kale dharkii waa beri markaan waraayo ku jirta kubadda soo celin doonaa laakiin ugu dambeyntii maya cabdisalaam jelle maxamuud shaafi golaayo oblique ayaa kubadda markaasi qabtay ama 50 kun oo qof ah oo dhalinyaro markaas u badan waana degmo markaasi shacbiyad badan ku leh dhankii isboorta waa kan kaarig allah salaam maya waa tahay markan waa tan dharkii wanaag uu tawakkal ayaa qaalib budul qaalid oo ku soo talaabsaday ninkii budul ku soo galay qaalid badan ku soo dhigay maya maysan dhicin koosub footballka Soomaaliya sayesha energy waa kan qaalid budul markale qaalid oo soo galay haddii ciyaaryahan cabdiqani kaarig waa kan markan weerar waa kan ciyaaryahanka lagu magacaabo kabtan sala Usmaan degmo kasta waa tababaraheeda ballanqaad ayuu galabta haystay ciyaartan ka hor golayaha kooxda degmada weerar markan waa kan qaalid budul bannaanka degmada markii lagu kurisay markan qaalid budul laga diido qaalid farsamo uu leeyahay laakiin marka aad tawariyaan waa in uu ku cabiraya sidaa darteed dhulka ayaa loo soo wareeyay diradhabe tugarowe tu muqdisho oo marka halis markaan markii gool kale ay soo wadaan laakiin disota gool kulaad kale ayaa laga dhigay markaan ciyaartooyga degmada calaamad digniinta ayaa la siiyay ciyaartooyga lambarka 9aad ee degmada waa beri ciyaaryahanka lagu magacaabo Usmaan Bashiir Aadan mar haddii difaaciisa la soo dhaafay ayuu isku dayay inuu istaajiyo ciyaartooyga garabka ka soo galay cabdi wajahaya dharkii waa beri wajahaysa cabdiraxmaan axmed heese goolka saddexaad cabdiraxmaan waa beri waxaa jabjabsanaysa degmada dharkii goolka saddexaadna waxaa ka dhaliyay deeshii beri oo dhahaya dabaaldega waa in loo qurxiyaa waa beri warsugu ayuu leeyahay warsugu gudoomiye go'aad sheekh kooxdiisa waxay u muuqataa koox aad u xoogan haddii waa beri lagu leeyahay 3 gool waa laga adkaaday degmada lagu magacaabo dharkii ayaa guul gaartay waxaa laga adkaaday degmada lagu magacaabo waa beri ayaa laga adkaaday dharkii ayaana badisay kulankoodii koowaad ee gruubka galabta